iyo ayagu ibra sidoo kale walaalayaal ducadu waxa weeye markuu qofka la dhibeeyo ama la dulmiyo waa madanatul ijaba weeye xayeel qofka xanuunadan lagu taabtay asalatan waa qof la dhibeeyo weeye oo la dulmiyay ama il ha noqoto ama sixir ha noqoto ama xasad ha noqote saadaradeed nabiga kaleey salaatu wasalaam wuxuu leeyahay saddex qof ducadooda lama soo celiyo saddexda waxa kamid ah qofka sooman ilaa uu ka anfurayo ducadii lama soo celiyo waxa kamid ah imaam caadila oo ilaahay kitaabkiisa sunnadiisa umada ku dhaqaya haduu ilaahay baryo ducadiisa lama soo celiyo waxa kale oo kamid ah dacwatul madluum ilaahay dacwadi inuu ilaahay subhanahu wa ta'ala uu leeyahay la ansurannaka walaw ba'da hin شفاء لروحي وحبل المتين بلشوي بشارو warheede waa maxay bishaaradu soo moogid in laga raystay xarumihii dadka badan la isku dhex cilaajinayo mid cilaaj uu furay xarun dadka si gaargaar ah lagu daweeyo ilaan xaaji xasadkayga baad ahayd maxaad mar hore ii geen wayday xaruntaas sida gaarka ah dadka loogu daaweeyo waa adiga boqolka qof igu dhex daraya cudurrada laga daaweynayo waxaa ka mid ah dhiig furanka waalida ceedo wareerka umusibyaanka gabdhaha wejiga ka halaabay baabasiirka dhagaxa kiliyaha gala xoojinta raganimada isha dhiigkarka sokorta naxdinta kili xanuunka waswaaska madax xanuunka jinka dhalmala'aanta dhasha Allah bixiye toobinta iyo kuwa kale oo fara badan alxamdulilaahi rabbil caalamiin والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم أما بعد ولا لا الإله سبحانه وتعالى بما هذا إسكالة ما هذا ألا سوكو بكرينين ما أنت إله سبحانه وتعالى هدو قدر وحنا هل كان أفردنا إنا نسود دينو برنامج تهراء أن أبلان سنين ومسلسل كيها كساب سنة حنونا ذا الروحيقة يا سيدة السجود داوية يا قرآن كي سنة يا دروس يا بحوث أرنتها كساب سن ما أنت إن شاء الله تعالى إلهي هدو قدر وحن شعلها إنا إذن لو ذاقو قفك حنونا ذا مركا يكون دعان على مضي يوزكو أركو محل قربا قفكا السجا يعني ودردارا كسابسا قفك حنونا ذا كل دعاي يقابكو اسكو دوين لها جود أهان ولا ليالمدك ودحاوي قفك مركو أريمها اسكو أركو وحلو باهي هي أولا أما شيئا أصلوه isku daweynta kitaabka iyo sunnada arinkana waa arin aan la isku khilaafin qofka waxa looga baahan yahay maadaama quraanka Ilaahay subhanahu wa ta'ala isu daweynayo inuu yaqiin la imaado quraanka Ilaahay inuu san ku galin konton 50-50 maxaa yeelay Ilaahay subhanahu wa ta'ala quraanka wuxuu ku cadeeyay in caafimaad iyo baraka uu yahay laakiin arinka ay u sugnaatay qofka Ilaahay yaqiinsan oo mu'minka ah Ilaahay quraankiisa wuxuu ku leeyahay ya ayuha an-nas qad ja'atkum maw'idatun min rabbikum wa shifaa'un lima fi as-suduri wa hudan wa rahmatun lil mu'minin ayada Ilaahay wuxuu tilmaamayaa in Ilaahay maw'iday waana soo dajiyay caafimaadna soo dajiyay laabaha u sugan إلهي وحو تلماما يا وحو هنون وياهي نحريسنا وياهي للمؤمنين قفك مؤمن كأي يقين سن قرآن كأن داوأ وياهي آياتك الإلهي وحو تلماما يا وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا قسارة آياتك الإلهي وحو تلماما يا قرآن كوانا سودة جيني أساقوا عافي ماذا ونحريسة وحو نأرنك أسقنا للمؤمنين haddii aad quraanka Ilaahay subhanahu wa ta'ala ku gasho iska tijaabi ama aadan yaqiinsanayn oo yaqiin boqolkiiba boqol qalbigaaga aanan u yaqiinsanayn inuu caafimaad yahay dabcan caafimaadka dadka helaya ma tihid waa inaad yaqiin la imaataa qodobka labaad walaalayaal qofka waa inuu Ilaahay subhanahu wa ta'ala tala saartaa qalbigiisa soo xaadiriyaa isla markaana uu yaqiiniyaa qofka dhibka keenay ama cida keentay ama qaadi karta Ilaahay subhanahu wa ta'ala keligii inuu yahay bila aadanka ama asbaabta ama qofka kugu tufayo ama quraanka intaba waa asbaab laakiin daaweeyaha xaqiiqada ah inuu Ilaahay subhanahu wa ta'ala keligii uu yahay saadaradeed Ilaahay quraanka wuxuu ku leeyahay wa in yamsaska Allahu bidurrin fala kashifa lahu illa hu haduu Ilaahay subhanahu wa ta'ala dib kugu taabto dhibkaasi kama feedayo ilaa asaga kaliya mooyee sidoo kale
إلهي سبحانه وتعالى قرآن كي سوحو كتل مامية أسقو نبي الله إبراهيم كشاكينية لما كان عقيدة ذا نبرية يوحو لي وإذا مرضت فهو يشفين هديئا حنون صدو ألا كليجي أيا إداوينية نبينا أرنكا ونوتي المامي ونبي عليه الصلاة والسلام وأكبر راق ويان نبي وحو نوتي المامي إنه حديث نوغو المامي كان داوية عافيمات كبحية ألا كليجي إنو يح نبي وحو لي عليه الصلاة والسلام اللهم رب الناس مذهب البأس واشفي أنت الشافي لا شفاء إلا شفاؤك شفاء لا يغادر سقما نبي حديثك وحو كتل مامي إلهو أدقو waxaad tahay dadka rabbigoodii waxaadna tahay midka xanuunka tagsiya ilaahow shaafi oo caafimaad adiga haya caafimaadana caafimaadkaaga ahayna ma jiro nabiga xadiiskana wuxuuna barayaa shaafiga dhabta inuu ilaahay subxaanahu wa tacaala keligii yahay arinka waxaan u leeyahay walaalayaal in badan dadka kamid ah ayaa arinkaas oo kale ku sanbariiraxada amaba wax asbaabtii ilaahay ka soka ay inta weyneeyaan ayay waxay moodaan dawadi مثلا qof alla qofkii quraanka akhriya ama naftaada ku akhri ama caruurtaada ha kugu akhriso ama qof ku dhow ama wadaad dhow ama mid dheer tufta waa asbaab way quraanku waa asbaab way cidda wax caafisana waa ilaahay subxaanahu wa tacaala qalbigaaga waa inuu arinka ku weyneeda sidoo nabigana baraya calayhi salaatu wasalaam ilaahayna quraanka uu noogu soo gudbiyay nabiyullaahi ibraahim walaalahay maxaa yeelay ilaahay quraanka fiiri wuxuu ku tilmaamayaa tala saarashadu natiijadeeda inay tahay ilaahay subxaanahu wa tacaala inuu ku caafiyo ilaahay quraanka wuxuu ku leeyahay waman yatawakkal cala allahi fahuwa xasbuh aayad kale ilaahay wuxuu tilmaamayaa alaysa allahu bikaafin cabada wayuqawifuunaka biladiina min duunih miyuusan ilaahay ahayn mid addoonkiisa ku filan dabcan waa ku filan yahay qodobka labaad walaalayaal waa muhim inuu qofka la imaado tala saarasho isla markaana qalbiga uu ka yaqiiniyo cidda wax caafisa cidda wax bogsiisa inuu ilaahay keligii uu yahay waxa soo haro dhanna sabab ay yihiin qodobka saddexaad ee looga baahan yahay qofka xanuunsan ama xanuunada la dhiban walaalayaal waxa weeyaan inuu qofkan ilaahay u soo laabto inuu ilaahay qofkan u soo laabto maxaa yeelay qofka markuu dhibka lagu sameeyo ama qofka mu'minka dhib markuu gaaro laba xaalad midooda weeyaan qofkan dambiyo sameeyay inay arinkan uga dhacday isla markaana looga baahayay intuusan quraanka ilaahay iyo asbaabti qaadan horta dunuubtii inuu ka dhaxbaxo ama qofkan inuu ilaahay jeclaaday jacayl ilaahay subxaanahu wa tacaala jecel yahay loo asiibay loona imtixaamay si uu u gaaro darajo ilaahay uu u cayimay isla markaana uusan gaaraynin ilaa imtixaankan la mariyo walidaalika qofka mu'minka waa inuu dambi hadduu ku dhex jira ka dhexbaxa ilaahayna quraanka aayad badan wuxuu ku tilmaamayaa dhibta ama musiibada imaato ee bilaadanka ama dunida ka dhaxdhacda in badan inay ka imaato sababta bilaadanka ama gacmahooda waxay ku fasheen ilaahay quraanka wuxuu ku leeyahay wama asaabakum min musiibatin fabima kasabat aydiikum wayacfu can kathiir aayad kale ilaahay wuxuu tilmaamaya wuxuu leeyahay ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون بعد السلف وعيده جرين ما نزل البلاء إلا بذنب وما رفع إلا بتوبة قفك إنه إلهي سبحانه وتعالى أتوبت كينو إلهي سبحانه وتعالى أتضرع آيات كلا قرآن إلهي نوحو تلماما قفك أسبابها دبت الله قبط وحيتها إنه إلهي أسوى الله أتضرع فلولا إذ جاءهم بأسنا تضرعوا ولكن قست قلوبهم وزين لهم الشيطان ما كانوا يعملون سيدو كلا ولا ليال حيابان لو قبهي وحكم إذا قفك إنو دعاء بضيو محايا لي دعاء وأصل الشفاء دعاء وأصل الرقية محايا لي قفك مركو نبلا قطابتو عدة كقاضيسان او اوغادي انو الهي سبحانه وتعالى او يahay maxaa waajib ku ah inuu ilaahay u ordo uu baryo uu dhaho ilaahu iga qaad arinkan waxa uu daliilay nabiga xadiiskii qisadii nabiga ee la sixray ee nabiga calayhi salaatu wasalaam waxa xadiiska waxa kamid ahaa maalmaha kamida markuu dhibkii nabiga isku arkay ilaahay buu bariyay daca kadib Aisha ilaahay subhanahu wa ta'ala wuxuu u soo dajiyay dacwadii markuu ka aqbalay wuxuu u soo dajiyay shifa
iyo asbaabtii isku daweyn lahaa iyo laba malag in loo soo dejiyey. walidaalika qofka mu'minka waa inuu ducada badiyaa. ilaahina wuuna amrayaa, wuxuu leeyahay waqaala rabbukum adcuunii astajib lakum. aayadka ilaahay wuxuu ku leeyahay waidaa sa'alaka cibaadii cannii fainii qariibun ujiibu dacwata daaci idaa dacaan. aayad kale ilahay wuxuu ku leeyahay aman yujiibu lmudara idaa dacaahu wayakshifu suu. walidaalika qofka mu'minka markii dhib lagu taabto waa madanatu lijaaba weeye, inuu ilaahay subxaanahu wa tacaala uu u cararaa. nabiga calayhi salaatu wasalaam waxaa ka sugan xadiis saxiixa inuu yidhi rabbigiin ina rabbukum xayiyun kariim yastaxyii min cabdihi idaa rafaca yadayhi ilayhi an yaruddahumaa sifra. ilaahay rabbigiin waa alle xishood badan oo deeq badan, wuxuu ka xishoodaa addoonkiisa markuu gacmaha u taago inuu u soo celiyo ayagoo ebera. sidoo kale walaalayaal ducadu waxaa weeye markuu qofka la dhibeeyo ama la dulmiyo waa madanatu lijaaba weeye. maxaa yeele qofka xanuunadan lagu taabtay asaalatan waa qof la dhibeeyo weeye oo la dulmiyey, ama il ha noqoto ama sixir ha noqoto ama xasad ha noqote. saa daraaddeed nabiga calayhi salaatu wasalaam wuxuu leeyahay 3 qof ducadooda lama soo celiyo. 3daa waxaa ka mid a qofka sooman ilaa uu ka anfurayo ducadii lama soo celiyo. waxaa ka mid a imaam caadila oo ilaahay kitaabkiisa sunnadiisa ummadda ku dhaqaya, hadduu ilaahay baryo ducadiisa lama soo celiyo. waxaa kaloo ka mid a dacwatu lmadluum ilaahay dacwadii inuu ilaahay subxaanahu wa tacaala uu leeyahy la ansurannaka walow bacda xiin.